muuqaalkana waa mid ku bilowday bartamaha keenta Amazon waxaynu arkaynaa kadib nin fariin qoraya mid saaxiibkiisa isla keentana mar hore ku nool jiray balse magaalka u guuray isagoo ugu faaloonaya kadib kidigtaankiisa xaggan wax walba in isbedeleen keentana ku soo bateen dad ugaarsadayala kuwaasoo xayawaanada noocooda ugu qiimaha badan ka ganacsada duurkan koodana hal shabeel oo madow ah kaliya haatan ku haray intoodii kalena la baabiyay dhinaca kale meelan ka fogeen isla keentan oo nin haween lagu magacaabo ay group sharci u ugaarsada ay hogaamiso haweenaydan ay ku wareejinayeen maalmihii ugu dambeeyay xayawaano ay soo dabteen una sheegay hal farxad leh kaasoo ana Black Jaguar-kii kama dambeyntii gacanteena ayuu soo geli doonaa wayna ku farxaysaa taas isla Jaguar-kaas madow ay raadinayaan meel aygan ka fogeen uuba ka daataawanayo intaa kadibna waxaynu arkaynaa isla fariintii uu soo qoray odayii oo ay soo gaartay ninkii saaxiibkiisa Saulna lagu magacaabo degayana Miami isagoo safarintaas akhrinay gabadhiisa Aurum ay ka qasayso si aynu u arkina ka qariyaba warqadda aabaheedna weydiisa saacadan saddex maxaa ku soo jeediyay ma iska siixatay si uu jawaabayo wadmi Paris ayaan wadaa hadalkeen intii wadeen TV-ga news laga soo deenayo waxaana soo baxsaba naagtii Onion Hyde sharcidarada ay ku wado xayawaanada Saulna tanuusan wax weyn ka soo qaadeenin isagoo isla shaqo abuur ayayba u tahay dad kale intaa kadibna Aurum oo qolkeeda soo gashay farshaxan ay maalmaha shaqadiisa waday isla markiiba bilaabayso inay ka sii shaqayso intii wadanataas soo sore markii ay yareed gelayso maalmaha kameen iyadoo keenta iska dhex wareegayso si lama filaan ula kulantay Jaguar yar oo madow ah hooyadii dhashana Onion iyo tiimkeeda ay dileen gabadhan oo ahayd mid aad u jecel xayawaanada nooc kasta u soo dhawaanaysuna sheegtay inaysan dhibaato ku hayn isaga isla maalinkaasna waa kuwa saaxiibo noqday uguna magac darayso how ilaa maqribkii ay isla joogeenna labadiiba waadna raadinayeen gabadhan dhinacooda ayaga u soo socda maqlayso waana ku arkaya aadna u farxeen gabadhooda u maleynayeen inay dhuntay inay dib ula midoobeen xayawaankan ay saaxiibada noqotana maanta ku jiri lama noola kariya anaga waa inaan duurkiisa ku sii deynaa si hooyadiisa u helo gabadhan iyoo taa ku faraxsaneen ku qasbanaata inay sii dayso waqti xadirkan soo noqo Aurum gabadhii ahayd maalintii xigtay iska soo aadaysay iskuulkeeda macallimadooda oo doori lagu magacaabo maalintaas si practical ah frog ama warrake ee caruurtan u qalqali rabtay Autumn aad uga xanaaqaysa taas waxayna damacsan inay wacdo kulinka qaabilsan daryeelka duurjoogta balse Doria ay ka ogolaanaytaas kana alisay maadaama xabsi ay geli karto iskuulkii kadibna gabadhan boostara kala duwan ku dhadhajinayso darbiyada iyadoona iska dhigayso qof u dooda xayawaanada gurigeedina markii uu soo noqotay maanta iskuulkii wuxuu kula soo kulantay taleefanka uga sheegaysa saaxiibadeeda waxaana soo baxsay gabadhan maanta foodada iskuulka kaas darteed looga soo buriyaba saaxiibadeedna uu sii sheegtay in ayeedeed oo keema musan ku dhex nool aadi doonto ku hadalkii taleefanka intii waday aabaheeda boorsatiisa dokumentiyo fara badan ugu jireen ay kala furtay akhrinaysa odaygii fariintuu u soo diri jiriyey sidoo kalena boorsadaas ku heshay sawir gabadhan hooyadeeda waxaana soo baxsaba mid u dooda xuquuqda xayawaanada hase haatee kuwii hantarada ee ugaarsadayaasha ay gacanteeda ku dileen sanada ka hor Autumna aad uga xanaaqday aabaheeda inuu waxaa fara badan ka qarqariyo intay soo orodona u imaanayso xafiiskii uu ku shaqay jiray isagoo bukaanadiisa mid kamid daaweynayo aabaheedna arrinkan wax ka weydiisay isagana ku dhahay gurigiisa yaa daniga ka dawmaanaya kadib aan ka wada hadlaynaa waase mid hadalkiisa aan dhageysanayn oo dheeshay saaxiibkaygii Black Jaguar-ka ayaan u cabsanaa nafsadiisa xaggaas in aynan ku qasbanaa si aan u badbaadiyo aabaheed xafiiskiisa inay ka soo baxday wadadii intay socotay xasuus horogelaysa iyo hooyadeeda waqtigii quruxda badnaa ay wada qaadan jireen gabadhan go'aan ku gaarayso inayba keema Amazon ku noqoto soo noqotay waxyaabaheeda waxayna dib ugu soo noqonaysaa iskuulkii ay dhigan jirtay si taleefankeeda oo ganax amal looga qaaday macallimadeedu u qaadato markiisa macallimada ku tiri kuma siinayo taleefanka haweenaydan noola yar ay beed ahaan camal u haysan jirtay Autumn ugu hanjabisa daaqada ayaa ka tuuraa iyadoo si aad u jecleed gabadhan ka barayso taleefankaada waa ku siinaa ahayga tuurin taleefankeedin uu soo qabanaysay macallimadan aragtay taleefankan tikid ku soo dhacayo oo waxay meesha ka ogaatay in Autumn Amazon u socdo si aynu u golaanna ka diiday kuma siinayo taleefanka casaatay Autumn u soo gashay inay gacanteeda dhan ka dafto dhinaca airborkana soo aaday ayadiina intay wacdo u sheegayso awu guri wax ka soo maqnaana oo saaxiibadeeda ayaan la soo jooga ayadaas oo mileynaysa markaas run u ogolaatay kama dambeyntii gabadhan u soo gashay inay diyaaradii gudaha u soo gasho halka macallimadeeda Dorina wili ay ayrsanoso airborkani imaaday si gabadhan u joojiso waxayna damacsan tikid inay iibsato saati loo sheegay diyaaradaas hadda bixirto tikidkeedu waa dhamaayay war farxadna ayuu sheegaysaa weynan soo dhaweeyahayd oo tiri diyaaradaas Miami markay ku degto taransata ay geli doontaa halkaasna waxaa laga yaabaa in boos aad ka hesho isla markiina tikidkaas ay goosanaysaa saati iyadoo waatay kitankeedii ay jeclayd oo sheegayo waa mamnuuc in xayawaanka diyaarad la korto si kastaba ay farsameynayso kama dambeyntii diyaarada gudaha u soo gashay waxayna bilaabay inay raadiso gabadhii Autumn ahayd halkaas la gabadhan iyadana kursigii ku fadhiday wejiga ku daboolatay maro kama dambeyntiisa ay arkayso waxayna ku qancinaysaa guriga ka ordayso inay joojiso iskana joogto magaalkan saati Autumn ku adkaysanayso inay baxdo saaxiibkeedana difaacda naftiisa si kastaba macallimadan gabadhan caqli la degtay oo waxay u hanjabaysaa booliska in kugu dacweynaa Autumn markay dareentay in sheekada ay fashilmi rabto iska dhigayso qof xanuunsan waxayna dhahaysaa suuli ayaan u baahanahay suuliyiina
daaqadiisa kale ka baxday gaari xaggaas ku baakinaan soo raacday hasaatee macalimiintan ay arkaysa gabadhan kamana harayso isla gaarigaas gaarigiina kasoo dabagashay kama dambeyntiina Autumn soo gaarayso markay ay yareed duurkan ay ku noolaa jirtay halkii ay deganaan jireen si u heshana dadkan deegaanka halkay ku nool yihiin keynta uu soo galaysa gudaha macalimiintan waxay ku qasbanaanaysaa inay gabadhan daba socoto meel degadeena ay soo gaareen Doria gabadhan ku dhayso ugu yaraan xataa aabbahaadi wacsi aad ula socotayso halka aad joogto gabadhan xarfaanimadeena iska dhigaysa qof aabaheed la hadlaaya balse beenteed ay ahayd oo mabuucinba macalimadan markay ku waatataas taleefankii dhan webiga ku tuurayso madaxda gabadhan kama dambeyntii markii aragtay iyo saaxiibkeeda hoob si uu soo badbaadiso ku tiri garbayaan ku siinaa aniga dhammaan kula sabraa weliba si buuqulahaana doon ay saarnaayeen dad kale oo doomo kale yar watay Autumn waxaan haqayso markii aragtay inay xayawaan oo isa ugaarsadeen rabaan inay ka iibiyaan una maleeyaan dalxiisayaal safar dheer kadibna kama dambeyntii soo gaaray halkii gabadhan ay rabtay waxaana aad soo dhaweynaya aabaheeda Sool ninkii saaxiibka la ahaa markii la weydiinay aabaha daaway u dhacday aabahii waan soo qiyaanay oo isagoo nugeen ayaa ka soo tagay guriga halkaan ugu imaaday in saaxiibkeeda hoob ay nafsadiisa badbaadiso ugaarsiyaashaas deena helin ka hor balse gabadhan ra'yigeyga odigaan uusan ku raacaynin kuna tilmaamay in mission halisa uu yahay kuna dambeyn doonta ayadan sidii hooyada loo dilay oo kale tan kalena ee taaba hoobkii saaxiibkeeda markii uu yaraa haatan noloweyn uu yahay lagana yaabo inuusan aqoonsanin sheekadantiisan intay ku qanceen haddana dhahays waanba sii baxa intaa kadibna gabadha deegaankan ahayd iyo ayada u wada socda imaanayaan geed ee mar kasta Autumn wax ku sawiri jirtay mar qorase jaguar madow uu gabadhan ku soo booday dhinaceeda balse uu ahaa mid asiga nafsadiisu u cabsanay Autumn dhaawac yar soo gaaray gabadhii saaxiibadeeda oo la socotana ku qaylinaysa qof caawiyo kama dambeyntan aabaheedii saaxiibkiisa uu gabadhan dhaawaca ka dayayo kama dambeyntan macalimiintan oo xaqiiqstay magacan hoob inuu yahay xayawaan jaguar sheekada qaraar la noqonayso wadigeena wax ka weydiinayso noolahan iyo halistiisa isagana ku leeyahay noolahaas waa mid nafsadiisa la carraayo oo waxay aaminsan yihiin in isaga dhibaato uusan ahayn laakiin dhibaato lagu yahay ugaarshada kastan uu raadinayo maadaama uu yahay mid aad u qiimo far badan leh muddo kadibna Autumn oo mid kamid geedaha dushooda isaga nasanaysay waraysan u helin saaxiibkeedii jaguar uuba agteeda marmarooyo martamana dareemayso in meelan ka fogeyn wax ka nuuxsanooyaan fiirifiiris ay ku bilowdana meelaha jaguar madow oo si ordaya arkayso waxayna go'aansanaysaa inay bursato una malayso saaxiibkeedii inuu yahay bakaysana mar far badan ku celcelinayso intuu ka dhumana raadkiisa heshay mar dambe haddana tiri waa inaan ka daba tagaa hal mar face to face u arkaysaa jaguar horteeda taagan waxayna tusaysaa calaamadihii markay saaxiibada ahaayeen si u jireen si uu aqoonsado hasaatee jaguarkan uusan aqoonsanin gabadhan waana mid haddana agteeda dhan ka cararay maalintii hagtana odaygii jiifka macalimadii gabadhan uu sheegayo halkan kuma sii noolaan kartiin waa inaan idin dhaweeyaa si aad magaalkiin ugu noqotaan sheekadaas intay wadeen nin ugaarsada ah uuba yimid goobtan waana mid qabiilkan halkan degan ugu hanjabaya maalmahan dibadbaxada aad nagu wadiin kama helin booskeenana taas kuma qanacsano haddaad jooji weysin dhammaantiin waa idin laynayna kadib bootadaasna goobta dhan uba isaga tegey intaa ka bacdina macalimidan iyo Autumn la soo saaray gaarigaas gudaana warowsana helin in jaguarkii madooba uu bursanayo mar dambe Autumn oo aragtay jaguarkan keenta dhexdeeda asigana ku ordayo gaarigii dhan ka degayso macalimidoodin rabtay inay ka degto darwalkii ku qaylinaysa si uu joojiyo gaariga isagoo ka xanaaqay naagtan qaylida badan ku yiri igaadega gaarigayga duqdana kala daartin meesha artin ka dhac kaga darantana macalimidan boorsadii ay ku watay kitankii ay jecleed uuba ka maqan yahay ama ka dhacay halka bartamaha keenta Autumn oo nooli isagana soo raadisay iskana hor yimaadeen mar labaad baaqi ugaarka tusayso doctors uu aqoonsaday gabadhan waan mid dhinaceeda u soo hortay habna siiyey inay wada ciyaaraan bilaabay macalimidoodii oo daawanayso waxyaabaan oo dhan xaqiiqsatay gabadhan madaxadeegeeda iyo rafaadkan ay gelinayso inay barrun yihiin oo saaxiib dhaba yihiin iyo hoob lana soo baxay taleefankeeda oo inay duubta bilowday nasiib xumasid wada kulinkii saaxiibkeeda wada qaadanayeen laga qasaayo kadib fallaar meel agtooda ku dhacday taasna keentay jaguarkan inuu ka orto macalimidan Autumn ku qasbanaanayaan jaguarkan dhinacu ordo inay ka dab ortaan jaguarkan isku soo tuuray meel webi ah ayagana markay soo gaareen qarka leeyihiin weenan ka boodna anagana si aanan nool dilin maadaama hantaradan ay ahayn kuwa naxariis la'aana webigiina isku soo tuuray markay ka soo fogaadeen ugaarsadayashan iskana baashaalayeen meel hal mar webigii uu ka soo baxayo jibisa weyn macalimidan gabadhana ka cabsadeen taas iyagoo sarab geed inay ka fuulaan u suurageli weynayso jibisadan dhinacooda ku soo socto waxaa sadaasa in jaguarkii uu waabiyo kadibna jibisadan dib ugu noqoto biyaha intaa ka bacdina saddexdooda xidada geedaha buur dheer oo meeshan ku taalay ku soo korayaan sheekana kusii dhaxwadeen Doriana weydiinayso noolahan maxaa ka damacsan tahay oo qorshaada isugu jawaabaysaa si loo waarsano ama loo dilin inaan geeyo ayaa rabaa goobaha xayawaanada lagu xanaaneeyo iyo kuro fara badan kadib
buurta meesha ugu sareysa soo korayaan macalimiintan la yaabayso quruxda Amazon iyo dhulkan wada cagaaran ayagoo Soomaaliya inay kasoo fogaadeen ugaarsadayaashii habeenkaas meesha ka saxday subaxda xigtana Atom la ciyaaraysa saaxiibkeeda macalimiintan weli muuqaal qarsoodiga ka duudoosa gabadhan saaxiibtinimadoodan la yaaban tahay goortaas maqlayaan kuwa ugaarsadayaal kale ah oo dhinacooda ku soo socda waxay sameynayaan inay ka dhuuntaan Atomna biyaha hoos ugu quusayso saaxiibkeedna tubo geed ka samaysan u dhiibayo si ay ugu neefsato taasina soo gelisay ugaarsadayaashan inaysan arkin saddexdan meesha joogo bacdeen iska sii wateen safarkooda doorayna la yaaban tahay meesha u socdaan Atom isugu jawaabtay saaxiibkayga meeshuu nagiyo ayaan tegaynaa taasi macalimiintan ku qanacaynin maadaama gaajo u dhimi karaan goortaas gabadhan xanuun fara badan ka dareemaysa lugteeda taasoo keentay macalimiintan inay xambaarto dabcan kayaan fiirs ku bilowday ogaatay nabarro waaweyn inay ugu yaalaan lugta waxayna raadinaysaa dhir dabiici si ay uga dhaydo markii uu horeysay gabadhan macalimiinteeda ay naft u keentay ka raaligelinayso sidoo kalena ka xuntahay kitinkii ay jecleed inay ka dhuntay sina weydiisay kitinkaas ku heshay iidan ugu jawaabayso habeenkii anigu qolkii isaga jira ayaan wadada ka maqlay gaari dardaraya noolahan oo yaray markaas waxa ka dambeeyna waan soo watay aniga ana daweeyay oo korsaday nolosheedina wax badan ay ka bedeshay maadaama markii hore aan jiro qof cidla ah subaxdii agtina weli tiimkan sii wataan keenta inay ku sii fogaadaan macalimiintan gabadhan xambaarsaneed mar qorase Jaguarkii hub aha oo dabeecadda bedelinayo waxaana soo baxay meelan ayagan ka fogeyninba inay joogeen kuwii ugaarsadayaasha macalimiintana oo aad ugu xumaatay tiimkan ugaarsadana noolayaasha inay saxyiin la soo baxaysa markale mobilkeeda waxaana ka duubay muuqaalo cadayn ah la yaabse Atom aad ugu xanaaqaysa markii aragtay kadib saaxiibadeedii qabiilkan naxas yar ku wareejinaysa Anya kana gadanaysay taasna gabadhan ay ka xumaatay hal marna qayli ka soo fakatay rarkana ay arkayaan Anyana aragtaba noolaan ay sanada far badan raadinaysa inuu meeshan joogo tiimkiina ku dhacday isoo qabta si waxman labada saaxiib ka ordeen tarayaashan madabeentiisa gacantooda ay soo galeen wax walba meeshan ka dhacayna macalimiintan ay muuqaal ka duubaysay dhamaadkeena gabadhan iyo Jaguarka saartay gaariga kaligeedna macalimiintan ku soo hartay waxaana waqti xaadirka sarkaysa gabadhii naxaska ka iibsanaysa tiimkan oo mooto meeshaas wadato waxayna ka codsanaysaa mootada inay u bedesho booska laga wadaayo iidan ay ka ogolaanayso kama dambeeytana jidkii qabiilkan la soo gaartay ugana sheekeynaysa si wax u dhacayeen muuqaalkiina tusaysa wadaas u dhahayo sida u dhaqsiyaha badan muuqaalkan waa inaad u geysaa Channel 4 oo newska looga soo daaya ugaarsadayaashan ficilkooda xun kamana foga xaruntooda meeshan jiibkan aad ugu xanaaqay kadib markii loo sheegay gabadhantiisa inayba naxaas ka iibsanaysay kuwaas xun waxay isugu jawaabaysaa baaba telefoon ayaan rabay inaan ku gato lacagtaas iyadoo u sheegtay halka loo wado Jaguarkii gabadhaas dhammaantood su'aalayaan halka Atom saaxiibkeedna ku dhahaysay isdaji aniga ku joogo oo ku difaacayo doorayna kama dambeyntii soo gaaraysa halkii janaalka newska diinay xaruntiisa ku taalay si live-ana muuqaalkii ay duubtay u tustay dadka adduunka iyo arrinkan sharci darrada ay Anya ay tiimkeeda ka wadaan keymaha dhexdooda waxayna keentay taageero fara badan inay yeelato dhinaca kale kama dambeyntii ugarsadayaashii oo gabadhani Jaguarkii keenay halkii ay u soo wadeen iridii dhooba yihiin dadkii qabiilka halkan deganay kadib markay soo arkeen newska ama wali isku soo sheegeen una diideen gudaha inay galaan hasaatee Anya askarteeda xabada ku taagayeen dadkan halkan degan nisbanaag saaygo tirada ka batay kuna hubaysnay qalbiyadooda normalka Anya fashilmayso boolisna ay yimaadeen kama dambeyntii Anya iyo kooxdeedana la wada xiray dhamaantood inta ka bacdina gabadhan iyo Jaguarkii ka soo saaray gaariga intay line u galeen Jaguarkan uu ogolaanaya markale keentiisa inuu si nabad ku galo isaga saaxiibtiisna si macsalaameeyeen macalimadii iyo gabadhan ku farxayaan kama dambeyntii inay kuwii xumaa ka adkaadeen hal marse keentii dhexdooda ka maqlayaan wax yar oo soo hadaafayo waxayna noqonaysaaba macalimiintan kitinkii aad ku jeclayd oo iyadana dib u heshay maalmo kadibna Atom aabaheeda kula kulmaysa halkii hooyadeed ay ku duugnayd aabbaani gabadhiisana go'aan ku gaarayaan inaysan ka fogaaninba qabriga waana kuwa keentan Amazon si toos u soo tegay gabagabadiina ayaa soo gaartay kuma shan daawashadaada